warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha uu geystay qarax miine oo maanta ka dhacay wadada xiriirisa X Control Afgooyi Xoosh ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa la sheegay in lala eegtay gaari nooca Braadada oo la sheegay in ay lahayd hay'ad samafal. Goobjoogayaal ka agdhaba goobta ayaa ii xaqiijiyay in mid ka mid ah howlwadeennada hay'addaasi uu ku dhintay. Macda ilaa iyo haatan ujeedada loo bartilmaameedsaday shakhsigaasi hase ahaatee waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo saacado kooban hakad geliyay isu socodka gaadiidka. Dhanka kale ma jirto ilaa iyo haatan wax faahfaahin dheeraad ah oo saraakiisha laamaha ammaanka ay ka bixiyeen qaraxaasi. Qaraxan ayaa ku soo aadaya iyadoo barqanimadii maanta qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay taalada Daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere. Maxamed Daahir Cabdullaahi Dulmidiid Media, Muqdisho.